macaamiil yaraysay xayeysiisyo badan aad samaysay kadib dadku wax ma ka iibsan waayaan ama laga yaabaa in ganacsiga hoos u dhacay oo aad dareemayso in dadka competition kala dhexeeyaan ay kaa sareeyaan. So haddaba iska ilow xayeysiisyo qaali ah iyo habkii hore ee shaqayn waayay. Sanadkan 2025 macaamiishu waxay rabaan wax ka duwan wixii hore. Muuqaalkan waxaan kuu sharxi doonaa siraha dhabta ah ee ganacsiyada guuleysta ay adeegsadaan si ay u helaan macaamiil fara badan, waana hab fudud aad bilaabi karto maanta. Muuqaalkan wuxuu kala qaadi doonaa ilaa 4 qaybood. Qaybta koowaad, dadku maahan wax iibsadayaan ee waxay doonayaan. Dadku ma doonayaan wax iibsadaan ee waxay doonayaan wax ay xal u helaan noloshooda dhibaatooyinka haysata. Haddii aad tahay qof dhar iibiya, dadku ma doonayaan dhar kaliya ee waxay doonayaan inay xirtaan dhar qurux badan oo ay confidence ku dareemaan marka ay xiran yihiin dharka. Haddii aad tahay qof digital marketing ka sameeya, dadku mar waxay xayeysiisyo kaliya waxay ka rabaan in iibkoodu uu sare kaco. Haddii aad tahay xirfadle sameeya service, dadku ma doonayaan adeegaaga oo kaliya, waxay rabaan result natiijo la hubo inay arkaan. Marka aad wax suuq geynayso, ha ka hadlin waxaad iibinayso ee ka hadal result iyo natiijada uu helayo macaamilkaas. Qaybtan labaad, sameyso brand. Maxaa kala duwan tihiin ganacsiyada kale? Waa inaad isweydiisaa su'aashaas marka hore. Haddii aad ula dhaqanto qof walba sida ula dhaqanto asxaabtaada, familigaaga, qofna xiiso kuma lahaan doono. Waa inaad noqotaa qof leh brand ay dadku xiiseynayaan la xiriiraan. Sidee ku noqon kartaa ku samaysan kartaa brand? Number 1 waa inaad dhistaa xirfadaada storytelling-ka. Dadku waxay jecel yihiin sheekooyin. Waa inaad sheegtaa sababta aad u bilowday ganacsigan, waxa uu macaamiisha ka caawin karo. Number 2 waa inaad sameysaa muuqaallo isdaba joog ah. Aad sameysaa maalin walba muuqaal joogto ah sameysaa. Ogowna muuqaaladaas aad sameynayso maalin walba adiga confidence ku dareemayo oo noloshaada kalsoonaan. Mid saddexaad, la xiriir dareenka dadka. Hadda ma aha shirkad kaliya sameysaa mobilada, waa shirkad dareensiisa dadka inay yihiin kuwo hal-abuur leh oo heer sare ah. Qaybtan saddexaad, xayeysiiskii hore waa uu dhintay. Waa inaad adeegsataa xog istiraatiiji ah. 2025 ma ahan sanad aad iska dhigi karto xayeysiis oo aad filato in macaamiishu kuu soo ortaan. Dadku waxay jecel yihiin wax ay wax ka faa'iidaan. So marka sidee ku adeegsan kartaa xog istiraatiiji ah? Waa inaad bixisaa adeegyo free ah lacag la'aan ah. Macaamiishu waxay jecel yihiin marka hore inay helaan wax badan. 2 waa inaad adeegsataa viral content sida YouTube Reels-ka, TikTok-ga, Instagram Reels-ka. Kuwani waa xayeysiis qarsoon oo viral ah oo bilaash ah. Qaybta saddexaad, email marketing-ku weli waa uu nool yahay, ma dhiman. Haddii aad macaamiil badan hesho, dadku waa inaad heshaa dadka emailskooda oo si daily ah u dirtaa ama weekly u dirtaa contact fiican. Tan afraad, ugu dambeysa, muuqaalkeena la sameeyo macaamiishaada xiriir la aamini karo. Macaamiishu waxay ka helaan dadka oo dhaqma sida dad wanaagsan camal ma ahan inay la dhaqanto sida qof maanta one chance one goal ah dhahdaa ka maanta bisha ku soo maray ka dhaca xoolaha. Waa inaad ka taxadartaa macaamiishaada. Sidee marka macaamiishaada xiriir la aamini karo u samayn kartaa? Marka ay kusoo qoraan comments ama emails kusoo galaan ama message kusoo qoraan, waa inaad reply garaysaa si caadi ah. Waa inaad bixisaa jawaab fiican oo daacad ah. Inaad ka bixisaa aadan wax been ah sheegin oo aad been ka sheegin company service-kaaga ama product-kaaga. So gunaanadkii muuqaalkeena waa intaas. Waana rajeynayaa inaad fahantay sida dhabta ah ee ganacsiyada guuleysta ay adeegsadaan si ay u helaan macaamiil fara badan sanadkan 2025. waxaana ka codsanayaa haddii aad tahay marka ugu horreysay inaad soo boqoto kanaalkeena inaad noo subscribe gareysaan, like noo saartaan, aana sii gaarsiisaa saaxiibada kale.